بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة إيماديني OD أما organizational behavior waxaan maanta qaadanaynaa chapterka buugga ka ah chapterka 10aad oo loo yaqaan understanding work teams in la fahmo work team ama wada shaqeynta si team ah in lagu wada shaqeeyo ayaan maanta maxaan ku dhahaa aan ka hadli doono okay team in lagu wada shaqeeyo understanding work teams okay chapterkan markaan dhammeeyno waxaan awood u yeelan doonaa inaan analyze gareyno popularity of teams in organization sababta ay macnaha inaan fahmno ama aan analyze gareyno growing popularity in aan sida caanka ay u sii noqonayaan teamska organizationka dhexdiisa inaan ka fikirno inaan isbabar dhigno waxa loo yaqaan group iyo team inaan isbabar dhigno maxay ku kala duwan yihiin group waa maxay teamna waa maxay inaan isbabar dhigno waxa loo yaqaan compare and contrast four types of teams teamska iyo noocyadooda kala duwan inaan aragno afar nooc ayaan arki doonaa identify the characteristics of effective teams inaan calaamadaha effective teams ka ogaano show how organization can create team players sidee organizationku u abuuri karaa team player dad team ah oo teamka dhexdiisa ku fircoon si fiican uga shaqeeya sidee lagu abuuri karaa decide when to use individual instead of teams sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaad ogaataa mararka qaar waxaa sax ah in individual la isticmaalo sidii team loo isticmaali lahaa marka shaqada naturekeeda ayay ku xiran tahay show how our understanding of team differs in a global context marka laga fiirinayo ama si guud sidee bay isu bedelaan okay introduction understanding teamwork means everyone works just as hard as the others in la fahmo teamwork macnaheedu waxay tahay qof kasta wuxuu u shaqeynayaa as hard sida ugu adag sida dadka kale teamwork dadku waa wada shaqeynayaan qof kasta si xoog ah ayay u shaqeynaysaa it means sharing on a common goal and striving toward that goal waxa macnaheedu yahay teamwork in la wadaago common goal wax la yiraahdo dadku horta intaysan team noqon dadku common mugtaha ground uma wada joogaan wax ay wada higsanayaan ama hadaf ay wada leeyihiin ama goal ay wada leeyihiin ma joogaan sidoo kale striving toward that goal in loo ordo ama loo sacyiyo ama loo halgamo sidii goalkaas loo xaqiijin lahaa waa in goal la wada degsado qof kasta oo ku qanacsan yahay teamka laga wada doodo goalka iyo meesha la aadayo la ogaado kadibna goalkaasi qof walba sidii uu ku gaari lahay oo u ordo okay waxaa jirta sidoo kale people in every workplace talk about building the team inta badan waxaa laga wada hadlaa workplace kasta markii la joogo ama goobta shaqada sidii team loo dhisi lahaa ayaa laga wada hadlaa working as a team and my team waxaa loo wada shaqeeyaa team and my team waxa la yiraahdo yacni qofku inuu yiraahdo my team teamkayga golahayga wasiirada dadka aan isla shaqeyno kuwa aan banooni isla ciyaarno kuwa shaqada aan xafiiska office mate aan nahay waxyaabahaas oo dhan ayaa waxa loo yaqaanaa bahalka maxaan ku dhahaa okay working as a team and my team but few understand how to create an experience of teamwork and how to develop effective team sidoo kale waxa aad u yar in la isticmaalo waxa loo yaqaano experience team in la sameeyo isla markaana la isticmaalo ayaa aad u yar okay meesha waxaan gelaynaa why teams so popular why are the teams so popular maxay teamsku u noqdeen kuwa ugu caansan ama si caan ah maxay teamku u noqdeen why teamska ay popular u noqdeen okay maxay u noqdeen okay teams so popular waxay u noqdeen siyaabahan soo socota number 1 increased competition and forced restriction of efficiency and effectiveness waxa loo yaqaan okay waxay kordhiyaan teamsku waxay kordhiyaan competition waxay abuuraan wax loo yaqaan restructuring for efficiency and effectiveness waa taqaan efficiency and effectiveness dadka yacni waxa la haysto in aad looga faa'iideysto ayay teamku waxay u yihiin sabab u yihiin teams better utilize employee talent
shaqaalaha ama dadka u shaqeynaya teamka kamid ah waxa aad looga faa'iideystaa talentigooda ama waxtarkooda ama baalkii maxaan ku dhahaa hibadooda ayaa laga faa'iideystaa are more flexible and responsive to change teamska sababta ay caanka u noqdeen markii la fiiriyo individualka waxa waaye waa more flexible aad ay flexible u yihiin isla markaana responsive to change means isbedelka way ka jawaabaan isbedelku macnaha haddii isbedel la keeno si fudud ayaa looga jawaabaa macnaha si fudud ayaa looga jawaabaa okay si fudud ayaa looga jawaabaa democratize and motivate inta badan teamku waa democratize macnaheedu waxa waaye dadku inay fikradda wadaagaan qofka aan lagu ceebin fikirkiisa loo ogolaado in uu wax aamino qofka oo fikrad yeesho in loo ogolaado motivation waxa waaye in la dhiirigeliyo qofka hadduu hal abuur ama shaqadii sidii loo wada maahan qaab kale oo soo hindiso in lagu dhiirigeliyo oo aan just lagu ceebeynin haddii aysan sax ahayn contrast of group and team iyo group la soo fardhiga marka meesha groups and teams are not the same thing isku mid maahan mar walba isku qaldin group iyo team isku mid maahan in this section we define and clarify in the difference between groups and work teams work group maxaa loo yaqaan marka a group who interacts primarily groupka si primarily iskula interact gareeya ama iskula falgala si ay u wadaagaan information isla markaana go'aan u qaataan midba midka kale oo ka caawinayo within each member's area of responsibility يعني area of responsibility qof kasta meel ayuu mas'uul ka yahay xafiis qof kasta mas'uul ka yahay marka qof kasta يعني dadkan ayagoo xafiis kala duwan jooga ayay hadana information isla wadaagayaan si go'aan ay u qaataan kaas waxa loo yaqaanaa group ayaa loo yaqaanaa ma loo jeeda يعني xafiiska maaliyadda xafiiska akademiyadda xafiiska baalka maxaan ku dhahaa gudoomiyaha xafiiska xafiisyadaasi qof kasta meel ayuu wuxuu ka yahay mas'uul laakiin maxaa ka dhaxeeya si primary ay isku falgalaan oo mar walba primarily to share information information la wadaaga maxaa waa go'aan la wada qaadana qof kastana shaqadiisa ayaa lagu caawinaa as a group loo shaqeynaa marka clear okay work team generate positive synergy hadda ka hor waxaan ka soo hadalnaa wax loo yaqaan synergy waxaan u maleynaa in la wada xasuusto hadii ilaahay idmo synergy macnaheedu waxay tahay wixii yani in shaqadii ugu badneed oo hal loo qaban jiray in si team ahaan loo qabto kadibna ay fududaato costigii iyo resourcigii gilayaan ay yaraato synergy taas waa macnaheedu maxaa waaye shaqadan 3 qof aa qaban jirtay 3 qof waa laga dhaafay 2 qof aa loo dhiibay motivational loo sameeyay waxa la shaqadii qabto 3 qof shaqadoodii labadaas qof aa qabat maxaa laga faa'iideystay marka synergy 2 + 2 = 4 waa sida caadiga soo maahan so it make waxa laga dhigi karaa wax loo yaqaan 5 aa laga dhigi karaa waa marka laga faa'iideeyo synergy marka laga faa'iideeyo okay and generate positive synergy through coordinated effort يعني coordinated effort يعني howlo isku xirxiran individual effort result in the level of performance that is greater than the sum of those individual inputs ma loo jeeda individual effort يعني qof kasta shaqada uu qabanayo waxay abuureysaa level of performance يعني waxay abuureysaa wax soo saar performance ay abuureysaa that is greater than taasoo ka weyn the sum of those individual inputs qof kasta halkii oo kaligiis ka shaqeey lahay oo shaqada meel ka qaba lahay dadka dhan markay isku tagaan waxay abuurayaan level of performance oo greater than sum of individual kuwii sida shakhsi ah wixii loo abuur lahaa performance-gii lagu abuur lahay si ka badan ayaa loo abuuraa oo greater performance ayaa la abuuraa meeshaan fiiri comparing work groups and work teams okay and waxaa laga hadlaa work group fiiri share information ay wadaagaan sideedaba work team iyo work group marka laga hadlaayo si fiican u fiiri intaan ayaa lagu xisaabtama 4 qodob ayaa lagu xisaabtama number 1 waa goal u wada degsan dadka synergy-ga ama sidii looga faa'iideysan lahay team work accountability iyo isla xisaabtanka iyo skills-ka aan ka bilaawno goalka waxa waaye work group markii la joogo share information la isticmaala goalku waxa waaye information-ka in la wadaago
intana maxaa waaye waa isku xiran yahay fiiri kan waa kala gogo'an yahay hal hal loo shaqeynaa kana maxaa waaye waa teamwork collective performance mujeeda dadka guud ahaan qof gooniyo wax soo saaraysa ma jirtee wixii la soo saaray waa la soo wada saaray waa macnaheedu okay synergy fiir marka waa positive mar walbaba hal markii loo shaqeey lahaa waxa ka badan waxa la soo saarayo markii as a team loo shaqeeyo inta laakiin fiiri neutral waa marka waxa laga hadlaa sometimes negative oo noqon kara macnaha synergy negative oo noqon kara oo waxa laga yaabaa dadka qofna inuu wax fiican soo saaro qofna inuu wax fiican soo saaro waa macnaheedu waxay tahay work group waa laakiin markii laga hadlayo work teamka waa synergy positive waa mar walba accountability-gana individualka iyo individual and mutual macnaheedu saas waa accountability waxa lagu xisaabtamaa hal qof la xisaabtamaa meesha laakiin group marka la joogo yaa la xisaabtamaa individualna waa loo xisaabtamaa mutualna waa loo xisaabtamaa si wada jirna waa loo xisaabtamaa dadka teamka dhexdiisana qofka individual waa loo xisaabtami karaa shaqadana lagu diray maxaa ka qabato waa la dhihi karaa skillska fiiri teamku waxay leeyihiin wax loo yaqaan complementary means yani xirfado isdhameystiraayo qof accounting oo yaqaan qof BA oo yaqaan qof finance oo yaqaan qof banking oo yaqaan macnaheedu waxa waaye qof waa public oo wixii coordinationkii guud oo yaqaana waa complementary skills laakiin halkan maxaa waaye groupka maxaa waaye random and varied waa kala duwan yihiin qofba xirfad uu leeyahay macnaha markii la dhaho waxa loo yaqaano baalka maxaan ku dhahaa saas waa okay four types of teams problem solving team ayaa jiro afarta nooc loo qaybiyaa teams problem solving team waa team waxaliyo oo dhibaato marka soo dhacday ayaa loo diraa leeyahay dhibkaas ayaa dhacay xaliye self managed team waxa waaye ayaga ismaamulo oo departmentska kala duwan macnaha team organizationka dhexdiisa uu sameeyay oo ayaga ismaamulo waa cross functional teamna waxa waaye departmentska kala duwan ayaa waxa laga keenaa individuals yahay departmentiga kana laga keenay departmentiga kana laga keenay departmentiga kana laga keenay kana laga keenay mujeeda marka shaqo mucayan ha loo diraa marka cross functional team la waa group isku dhaf ah waa technology ma kuwa virtual team la asaga technology ku shaqeeyaan marka technology ku shaqeeyaan isma arkayaan waa virtual meelo kala duwan ay joogan geographically way kala duwan yihiin marka ma is arkayaan qof walba meel gooniya ayay ka shaqeysaa way macnaheedu okay problem solving team members often waa teamkii koowaad members often and from the same inta badan dadka hal department ayaa laga wada keenaa same department ayaa laga wada keenaa share ideas or suggest يعني idea ay wadaagaan iyo suggestions improvements ay sameeyaan howl ay si improve gareeyaan inta badan rarely given authority to unilateral implement any of their suggested actions inta badan يعني rarely si dhif ah ayaa authority loo siiyaa si ay soo jeedintooda u aqbalaan waxbay soo jeediyaan dadka madaxda ah qaata go'aan self managed teams maxaa waaye 10 ilaa iyo 15 shaqaale oo highly related jobs ah waa macnaha highly related jobs work planning and schedules assigning tasks يعني shaqay bahalka maxaan ku dhahaa qorsheeyaan kiina waa dejiyaan operating decisions and actions way qaataan working with customer kana way la shaqeeyaan dadkan waaye self managed teams ayaa loo yaqaanaa ilaa iyo 10 ilaa iyo 15 ayaa badanaa laga dhigaa laakiin waa lagu kala fakar duwan cross functional team maxaa waaye members from same level but diverse areas waa dad laga kala keenay department kala duwan laakiin dad yani same level macnaheedu waxa waaye isku yani awood ahaan waa isla egyihiin laakiin xafiisyo kala duwan ayaa laga keenay oo organizationka dhexdiisa ah si information isu weydaarsadaan develop new ideas and solve problems ideas cusub ayay keenaan isla markaana problem xaliyaan coordinate complex projects waxay isku xiraan projectyada waaweyn markii project la sameeyay projectyada waaweyn ay isku xiraan development might be time consuming due to the complexity and diversity mar walba developmentiga ama horumarku waa time consuming waqti weyn oo ay qaadanaa maxay ugu wacan
waxa ugu wacan complexity yacni shaqada adeegeeda iyo qalafsanaanteeda iyo isku xirnaanteeda iyo dad badan ku lug lahaanshahooda ayaa ugu wacan iyo wax loo yaqaano diversity oo ah kala duwanaanshaha dadku sidoodaba way iska kala duwan yihiinba dabeecad ahaan iyo jinsi ahaan iyo wax walba level of experience ah waa lagu kala duwan virtual teams waa kana computer waa dadkan meelo kala duwan ay joogaan computer waa macnaha aniga hadda groupkiinan aan cashirka u soo jeedinaa iyo aniga maxaa isku xiraa group waxa isku xiraaya internet Soomaa waa sidaas oo kale computer technology ties ayaa isku xiraaya awood computerad ayaa isku xiraysa dispersed team together yani kuwii kala baxsanay oo meelaha kala duwan joogay halkaas ay isku xiraayaan marka kan aan maahan inta badan kuwa kale ayaa ka caansan key components of effective teams okay effective teams ka components ugu waaweyn waxa kamid ah context composition iyo process hala akhristo meeshaas waa la fahmi karaa context-ga maxaa ugu bahalka maxaan ku horeeya resource ku filan ma haystaa leadership iyo structure-kii ma leeyahay climate of trust ma jirtaa dadku ma is aaminsan yihiin performance evaluation iyo reward system ma jirtaa yacni ma la isqaymeynaa shaqadii ma la isku abaalmarinaa dhinaca kale fiiri composition-ka fiiri ability of members dadka shaqadu qabanaya awoodooda la fiirina personality-gooda waa la fiirina allocating roles doorka qof walba uu leeyahay waa la fiirina diversity iyo kala duwanaanshaha size of teams member of flexibility iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa la fiirina process-ka maxaa waa common purpose dadku waa inay isku ahdaaf yihiin team efficacy wax la yiraahdo jira team efficacy waxa loola jeedaa efficiency iyo kala waa yani teamku ma isku filan yahay ayagu ma isku filan yihiin conflict levels yani hadii ay ila intii in la eg ayuu qaataa conflict haduu soo baxo isla markaas soo baxa mise dhibaato kala jirto social loofing wax la yiraahdo jira social loofing means kula daarasho erayga ugu weyn oo aan ku macnay kara waa kula daarasho macnaheedu maxaa waaye team maadaama leeyahay dadka qaar waxay sameynayaan waa jiifanayaan shaqo ma qabanayaan markii la shaqeeyana yani oo teamku la guuleystana guushaas ay qayb ka yihiin macnaha marka maxaa waaye macnaheedu waa kula daarasho Soomaa yani waxba ma aadan qaban waa ku dhex dhuumatay shaqaalaha kale ayaad ku dhex dhuumatay waa macnaheedu waa anagu assignment dirnay laba qof oo saacad inta kale ka soo shaqeysay 10 marks la wada hel is that clear okay marka cashirka muhiimadiis intaas ayay ahayd intaan iska soo akhrista meeshan waxa waaye global implication ka teamka uu leeyahay mar walba teamku ma ahan halka ugu horeeya waxa jiri kara waxyaabo kale ayaa jiri kara aad u mahadsantihiin waxa jiri karta shaqooyin hal in loo qabto loo baahan yahay oo aan teamka looga baahnayn marka cashirku aad u xiiso badan yahay hana la sii baaro buugana hala fiirsho waa soo koob hadeertan maadaama saacado badan aan wax la dhageysan karin marka aad u mahadsantihiin thank you
injineer saaxiib cashiran duubay qaabka loo seef gareynaya ay u adkaan inta ku qoran tahay ha waa duuban yahay hadda waxa waaye waa socdaa luuqan furaa sax okay calaamad oo boodboodayso guduud iyo madow ha